بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات ملكستي جوا السلام يا أنت كدب وحن ربا إن أنك الله عضدي ساك حرق جاهد اللي يروح ستيشن كبوليس كمجال القسمية مركو رأيلها بكون مهتم أو يسود أيه ونقوم هذعلني مع حد كوبات كدي مدد كي كقب قاطع دمان حرق كدي دي كحم هذا إهل يا الصوماليين ملكستي جوا يقرأوا حلا مهدا أيضا واندين هي markii waxaan rabaa habka xarigayga sida uu ahaa inaan idin faahfaahiyo saacadu markay ahayd 4tii subaxnimo ama 10ka barqanimo waa nimbaas u yaqaanay anoo marahaya isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaan la kulmay dad fara badan oo jooga isbitaalka hortiisa waan weydiiyay waxay ii sheegeen gabadh 2 bilood ka hor la waayay in meesha lagu arkay meydkeeda isbitaal gadaashiisa kadib la soo bixiyay meydkuna meyd angagay u yahay dhacdadana ay la yaabeen gabadhuna waxay haysay ii sheegeen gabadh 8 jira oo xilli hore la waayay arrinkaas baan damcay waajibkayga saxaafadnimo inaan guto anoo ehelkii gabadha wareystay bay saraakiil booliiska ay yimaadeen waxay dhaheen maxaa duubtay waan u sheegay gabadhaas oo xilligaas hore la waayay haddana geeriyootay baan duubay ehelkeedii baan la hadlay waxay dhaheen saldhigga booliiska ma isku iman karasaan arrinka wax ogaan anagu aan u dhageysano waayay baan ku wari saldhigga booliiska aan ugu tagay codkii baan kombiyuutarka ugu soo way dhageysteen wax dhibaato kuma jabna bay dhaheen haddii wax dhiba ku jabayaan waad ka hadli kartaan baan ku wari fikirkina way sheegi kartaan ma yabay u dhahan kadib labadii sargaal ee meeshaan ugu tagay baa gooni baxday waxa la ii sheegay inuu taliyaha booliiska soo amray in aniga la xidho xabsiga la dhigo waxaan ku wari ficilku arrinkii inta kaliya haduu ahaa waxaan u horeeyay oo dambiana ma garanayo ma sababta la xidhay maxay tahay ma garan karo wiil taliyaha booliiska kulay ninkaas ay yiri hal la xidho wariye gacmo dheer saas oo xarigu ahaa muddo 3 saac ayaan ku jiray goob aan munaasab ahayn oo xabsi ah oo qof aan dambi gelin inuu ku jiro runtii aad baan u cambaaraynayaa xariga aniga aan dambi gelin oo shakhsiyadayda waliba deegaankayga jooga iyo meeshii aan inta badan xilli dheer aan ugu shaqeynay mutadawacnimo iyo xilli adag waqti badanna aan dhankayga ka qayb qaatay dhismaheedii iyo nabadgelyadii aan dambi sameyn in la igu xiran aad baan uga maxay inta marka laga tago aniga waxaa jira dadku culeysyo badan baa jiray leeyin oo dhankaaga ku saabsan anu ma garanay wax dambi aan sameeyay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta joogan inay xaajada ka warqabaan ogaadaan xaaladaydana ay si dhow ay wala socdaan hadii alla idmo mid kasta oo saaka xarigay ka dhidheena waan uga mahadcelinayaa meel kasta oo dalka uu ka joogo qof kasta oo uu yahayba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.